saaxiib yaal slaadkan waxaa isla arkaynaa typeska kala duwan ee beamska iyadoo loo fiirinayo method of construction habka loo dhisayo iyadoo loo fiirinayo ayaan isla arkaynaa. Nooca koowaad marka waxaa la yiraahdaa cast in situ concrete beam. Beamka noocan oo kala ah waxaa loo isticmaalaa marka beamka la rabo in lagu shubo site-ka meesha goobta wax laga dhisayo marka aan rabno in aan ku shubno beamkeena waxaa la yiraahdaa cast in situ. Okay, so marka fresh concrete kaadi ayaa waxaa ku diyaarsanaysaa site-kii kadib waxa formwork-gaadi ayaa xiranee beamkaadi marka saas oo ayaad adhow markii birihiisii wixiisa u dhigto ayaad u shubi doontaa. Okay, markaan shubno kadib oo ma aragtay concrete-keeni uu adkaado kadib ayaa laga furi doonaa formwork-ga kadibna wuxuu ready u yahay wax kastoo culays oo loo design garay markaas in la soo saaro ama loo soo isticmaalo. So marka waa ujeedaa noocan waa fresh waaye. Okay, halkaan bamkaagi ama waxa rabto isticmaal habka rabto u shube shubkiyo fresh ah oo dareere ayaa halkaas ujeedaa in la isticmaalayo. Nooca labaad marka maxaa la yiraahdaa precast concrete. Okay, precast concrete beam noocan waxaan kusoo aragnay slabka kusoo baranay horaa loo diyaariyo oo yacni waxaa lagu diyaariyay meel site-ka ka baxsan. Okay, macnaheedu waxay tahay marka warshad ayaa samayso. Okay, so marka noocan warshadaha ay soo sameeyaan oo kale wuxuu ku habboon yahay dhismayaasha. Okay, wuxuu ka wadaa macnaha quality ahaan waxaa aad u weyn kuwa shirkadda ay soo saarta ayaa ka quality badan oo ka quality fiican kuwa site-ka lagu diyaariyay ama goobta dhismaha. noocyo kala duwan ay noqon karaan waxa waaye THL sectionadooda macnaha intaas oo section loo sameyn karaa. nooca saddexaad marka waxaa la yiraahdaa pre-stressed concrete. noocan marka waxaa lagu dhahay waxaa la isticmaalaa ama marka la dhisayo waxaa la isticmaalaa internal stresska laga faa'iideysanaa intii aan loo soo isticmaalin culays banaanka ah beamkeena. Okay, si loo yar marka potential tensile stresses yacni materialkaada waxaa taqaanaa ama stress wuxuu imaanaa markii culays banaanka ah shayga la soo saaro. beamkaadi siduu u toosnaay oo saan u ahay haddii culays la soo saaro waxaa ku xisaabtamaynaa in xoogaa calol uu yeelanayo. Okay, oo shaygii qaabkan uu isku bedelayo. Okay, xoogaa calolo uu yeelanayo. So marka meeshaan internal compression ka jira internal tension ka jira. So marka tensionkan ayadoo laga hortagayo si cracks ama deflection uu soo imaan ayaa biraha halkan la geliyaa. weliba birahan markii intaan culayska loo isticmaalin ayaa iyaga stresskooda la sii isticmaala macnaha waxaa jacks iyo waxyaalaha lagu dheereynaa hadhow markuu qalanana waa la jaraa meesha marka hadhow compression ayaa imaanayo. Okay, compressionka marka wuxuu counteract ku sameynaa ama uu yacni iska caabinaa oo balance gareynaa kii compressionka kor ka jira. marka materialka noocan oo kale waxaa la isticmaalaa markii cracks ama deflection laga cararayo. Okay, aaduna muhiim u yahay haddii sharaxaad dheeraad ah rabto muuqaalka hore oo kale ayaan ku sharaxnay oo slaabkii aan uga hadlaynay. So marka haddii loo baahdo insha Allah noocan asaab u baahan in si gooni looga hadlo fiidiyoyaal kale ayaan kusoo qaadanaynaa. Okay, wuxuu ku leeyahay marka pre-stressed concrete waxaa loo design gareeyaa ama loo isticmaalaa markii la design gareynayo meelaha laga rabo awoodda aadka u badan oo kale. sidoo kale marka la rabay in reduction lagu sameeyo alma la yareeyo cross sectional dimension weyn oo kale marka aadan u baahnayn deflection oo kale maxaa looga hortagaa depthing in la dheereeyo. balse haddii birtaada tensionkeeda aad ka faa'iidaysto aad biri stressed ah ku samayso waxa waaye naftirkeedu waxay kaa yareynay macnaha maxaa la dhahaye caqabadihii uu kugu imaan lahay inaad dimension dheereedo kale taasaa kaaga filnaanayso. Okay, iyo weightka aadka u culus oo kale naftirkeeda waa uga faa'iidaysan kartaa. Okay, marka laba nooca loo sameeyaa pre-tension ayaa loo sameeyaa iyo post-tension. Okay, pre waa intii aan la shubin ka hor birta in stress lagu sameeyo. postina waxaa la lahaa birta shubka markii lagu shuba kadib in birtii tensile stress loo isticmaalo la kala jiido. Okay, so marka idan haddaa u baahan tahay inaad sharaxaad fiican ka fahanto slaabka markaan ka hadlayaa si fiican uga hadla videogaas ayaa ku laaban kartaa. so marka pre-stressed concrete waa noocan oo kale waa. Okay, yani halkaana biro ugu jira. Okay, birahaasna waa pre-stressed. Okay, ama post-tension. Okay, waxaan rajeynaa in isla fahnaa iyadana.